بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن إذا لحانتين به وانو إذا جعلنا هاي انتينا داونيسا عجلديدني عاوا waxaan taaganahay ma laga yaabaa inaan wareysi ka qaadayo ama aan wada fadhino ama uu chance isiiyay mid kamid ah madaxweynayaasha Soomaaliya ee soo socda su'aashaas jawaabteeda waxaan u deyn doonaa waqtiga iyo qadarka Rabbi iyo qoraalkiisa waxa caawa martii ah oo wada sheekaysan doonaa musharax madaxweyne mid kamid ah xildhibaanada federaalka ee dawladda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sharaf bay tahay caawa inaan halkan kugu wareysanayo gaar ahaan barnaamijkeenan oo aan ahayn mid siyaasi ah ugu horeyn waxaan ku leeyahay soo dhawow mudane xildhibaan mudane qoraa aad iyo aad dhawahay waana ku maasantiin bahda Universal iyo adiga farax inaan fursadan isku helno wareysigan adiga qaado tala badan bad wadataa ma waxaan kuugu yeeraa musharax madaxweyne ma waxaan kuugu yeeraa xildhibaane mise waxaan kuugu yeeraa qora teeba dooran lahay Cabdiraxmaan magacaaga kaliya ayaad ku qanacsantahay caawa waxaanu u joognaa inaynu iska wareysano ama aynu falanqeyno mid kamid ah buugaagti ugu hadal haynta badnaa ee sanadkan 2025 waa buugaaga adkaysi hadda dad badan buu gacantooda soo gaaray waxa laga yaabaa akhristayaal badan oo buug akhristay inayna daawanayaan qaar koodna ay u soo socdaan buugan inay akhristeen qaar kood inay bartamaha marayaan ugu horeyn waxaan doonayaa bulshada bal inaan u akhriyo hal shay oo aniga si gooni ah ii soo jiitay waxaan su'aal iska weydiiyay mudane xildhibaan ama mudane Cabdiraxmaan oo adigu aad dooratay inaan kuugu yeero buug adkaysi taro muxuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur adkaysi ugu bixiyay kadib waxaan arkay qoraalka buuga kaga qoran xagga dambe waa qoraalkani bal waxaan la wadaagi doonaa akhristayaasha qoraalkan xagga dambe buugaaga kaga qoran oo ka jawaabaya sida ila tahay magaca buugaaga adkaysi waxa tiri sanadihii aan siyaasadda ku jiray waxaan la kulmay suurad xumayn sumcadil shirqool khaarajis ah iyo diinka saarid badi dadka ay caqabadaha baaxadda leh soo wajahaan way ka niyad jabaan hanka nolosha iyo hiigsiga yoolka adigoo waliba hadalkaaga sii wata waxaad mar kale tiri buugani wuxuu dul istaagayaa awoodda ruuxda iyo karaanka sababta uu ahaa inaan adkaysi u yeesho duruufahaasi adag iyo xaaladaha qalafsan wuxuu kaloo dul istaagayaa dacdooyinkii iyo duruufihii saameynta ku yeeshay qaabaynta iyo fahamkayga nolosha siyaasiga ah waxaan rajaynayaa inuu noqdo jidbixin iyo tusmo lama hadiyo waxaan filayaa daawadayaal badan inaad ka kaafiday magaca buugga adkaysi bal adiga oo intaas oo dhan ku sharaxay magaca buugga adkaysi haddana adkaysi buug ayaa u bixiyay ma adiga ayuu ka soo go'ay oo wali buugan waa adkaysi mise saaxiibo aad la tashatay oo buugaaga akhriyay magaca u bixiyay buuga oo wanqalay waad ku mahadsantahay horta inaad akhrisay sababta adkaysi ugu bixiyay oo buugga dambe aan ku soo koobay magaca adkaysi anoo iga yimid markaan eegay aan ku fikiray buugga inaan qoro duruufaha i soo maray iyo xaaladaha aan soo marayna aan fiiriyay buugani ay ku jiri doonaan ayaan go'aansaday inaan u bixiyo magacaas adkaysi maadaama aan u soo adkaystay duruufo adag oo i soo maray noloshayda buugana aan ku diiwaan geliyay magaca sababtaasaan ugu doortay runtii dadkana waxay isku wada raaceen waa inuu magacii ugu habboonaa buugga loo bixi lahaa uu yahay wax badan baad u soo adkaysatay waxyaalaha aad u soo adkaysatay waynu qaadaa dhigi doonaa waynu ka sheekaysan doonaa balse waxaan ugu horeyn doonaa buuggu wuxuu ka kooban yahay cutubyo kala duwan cutubka ugu horeeya ee buugga waa barbaarintaadii iyo noloshii aad ku soo kortay ee buulo bartay waxaad ka sheekaysay qoyskiinu siduu saameyn ugu yeeshay siyaasaddaada gaar ahaan hooyada oo ahayd qof u dhaqdhaqaaqa iyada laftigeedu xorriyadaha intaynaan waxaasoo dhan u gelin akhristayaasha buugga way ka dhargeen laakiin qaar badan oo ina daawanaya wali buugga may akhriyeen bal maxaad ka xasuusan kartaa noloshii buulo barde
iyo sida uu qurux badneyd ee yaraantaadi maxaad ka sheegi kartaa runtii Buulaburte waxay ka mid tahay meelaha aniga qaabeeyay barbaarinteeda iyo noloshayda waalidiinteena dadkii ugu badnaa oo saameynta ugu leh ahaayeen maadaama hooyadeena ay dadka xorriyadda u dhaqdhaqaaqa oo iyadoo yar ku biirtay dhaqdhaqaaqii ururka Israel hiiraan qaasta magaalada Beledweyne waxay ahayd xarumaha ugu waaweyn ee ururka Israel oo ragga hoggaanka u ahaayoo dhan ay soo wada mareen sida aadan Cabdullaahi Ismaaciil Allah u naxariistay Cabdullaahi Ciise Allah u naxariistay sidoo kale Sheekh Cali Jimcaale iyo rag kale siyaasiyiin oo badan oo ururkaas ka tirsanaa ayaa base u ahayd marka iyada waxay ku barbaartay ay ka shaqeynaysay hotel uu lahaa siyaasigaas weyn ee Hiiraan Sheekh Cali Jimcaale marka dadka dhageysta oo waxay ahayd dadkaas siyaasiyiinta xornimo u dirka dhageysta marka annagana tii bay ani iyo walaalahay ay nagu barbaarisay dal jacaylka xorriyadda in loo halgamo muhiimadda ay leedahay aabahayna askari waxay waliba dufcadii labaad aan jeclahay inuu ahaa ciidanka xoogga dalka loo qoray ilaa iyo dagaalkii 77 askartii gashay ayuu ka mid ahaa inkastoo 80kii ka retire gareeyay ciidanka marka hooyo aabe annaga waxaan soo barbaariyay dal jacayl iyo dawladnimo iyo qaranimada Soomaaliya dadkii saldhigga u ahaa magaalada Buulaburte waa magaalo dhoobay ah webiga mara xafadeena webiga u dhaweed anaga waxaan dhahnaa Hiiraan dhoobeyda markaan webiga jiinkiisa dhahnaa webigan u dhaweyn aad ugu dhaweyn beeraha baan u dhaxeeyay marka nolosheenaas waxay ahayd nolol maaragtay xataa markii aad doonayso inaad meerato ama aad qubaysato waxaa sahlan inaad webiga soo dabaalato subaxii aroortii hore dadka webiga yaqaanana webiga subax hore wuu diiran yahay aad u fiican yahay laakiin dadkaan aqoonin way ka baqaan waxay is yiraahdaan ama qabow yahay marka intaad qaadato shukumaankaaga ama si u yaqaanaan tuwaalka dadka qaarkood kusoo dabaalato kusoo maaragtay tirtirato imaata xaafadda ka quraacato dadkana waxay dhahaan sense of community waxa meelahan looga yaqaanaa jira dareen wadareed bulsho ayaa jiray oo dadku iska warqabeen qofka tabaalaysan waa la taakuleynayay qofka aroosay waa la kalmeynayay qofka dhinta janaasadiisa laga qayb galayay oo loo tacsiinay tacsi waliba weyn oo mug leh qofka maaragtay xanuunsan waa la booqanayay dadka marka waxay leedahay solidarity wax la yiraahdo iskaashi dad leh oo community oo san qabiilka macno weyn ugu fadhiyeen ahaayeen hooyooyinka magaalada Buulaburte caan ku tahay hooyooyinka saameyn weyn ay markasta ay lahaayeen dad isku xiran oo xiriir bulsho iyo mid diineed oo ka dhaxeeyo waxaan ugu jeclaa jiray maalintii la yiraahdo bilabada wax la yiraahdo jiro haweenka isugu imaadaan bil kasta labadeeda ay ku muraadeystaan oo la isku keenay raashin kala duwan dhalinyarada marka anaga quraanka akhrino xogaa yar oo sanuud lacag oo la sii jiray aad ay noo farax geli jirtay raashin fiican meesha laga cuni jiray laakiin hooyooyinku si ruuxiyan ah ayay isugu xirnaayeen dad maaragtay isku dhagan oo isku wada xiran ayagoo kala qabiila oo kala gobollo kala duwan ka yimid marka taas aniga marka waxaan ugu barbaarisay jiilkeennii dhalinyarada ah ee degmadaas ka yimid dad isjecel ilaa hadda iska warqaba is xiriiriya magacaas ahaanshaha Buulaburtadaas sida kale markii la Buula ayaa la yiraahdaa dad markaan isku xiran oo ilaa haddeertaan dad WhatsApp groupyo leh deegaankii kaalmeeya dadkii kaalmeeya qofkii dhibanaha deegaankaas ka soo jeeda kaalmeeya meeshaasna waxaan ka keenay sansigaas isku xirnaanta ama dareenkaas isku xirnaanta ah marka waa saameyntii ugu horeysay raadeyntii ugu horeeyay ay nolosheena ay runtii ay ku yeelatay ay aad iyo aad muhiim ugu ahayd haday tahay dhinaca jawiga haday tahay dhinaca nolosha dadku horeera tabareeda iska ahaayeen iska nugul oo dhaqaale badan ma jirin iyo hanti badan ma jirin laakiin jacaylka iyo isku xirnaanta iyo dareenka bulshanimada wuxuu ahaa waxaan wax la siista aysan jirin runtii xasuuso qurux badan baad ka haysataa Allah u naxariisto hooyada Mako waxa kamid ahayd inay ku bartay dabaasha nabigeena kaleey salaatu salaam wuxuu inoo sheegay in awlaadda la baro callimu awlaadakum as-siyaaha wa rimaaya bara dabaasha iyo sida loo gano waranka dabaal bay hooyada ku soo bartay xasuusaha kale ka haysatay quruxda badan ee buuga ku sheegtay waxa kamid ah inay moofada taqaanay oo ay ahayd qof kuug ah amba cunto kariye wanaagsan adigu xasuusaha ku soo bartay halkii ma ka sii aba qaadayo wali dabaasha sidii ma taqaanaa ma ka baratay cunto karinta oo ma isku dayday inaad cuntooyinka qaar samaysid
oo ku qasbanaynba dabaasha horta wayna bartay ilaa haddana waan aqaanaa runtii ayada dabaalajiisa ayada balweyne ku dhalatay bulugurta kuma soo dhalan laakiin bulugurta waa nimid qof marka uu balweyne dabaasha ayada ku baratay annagana wayna bartay runtii qof ayada dabaasha aad u yaqaanay ahayd ilaa haddana waan naqaanaa inteeni ka baratay waan naqaanaa cunto karinta waa ku qasbanaynba sababtoo anaa gabarna lama dhalan inteeni 5 wiil ahayn sida buug ku qoran marka mid bamaro cuntada oo kariyaa oo hagaajiyaa guriga nadaafiyaa nolosha iyo reerka oo kii markay soo weynaadaba mid kale ka baxa kala ku siisay marka waan ka baranay cunto karinta iyo dabaasha waxay kaloo bartay ay noogu celi jirtay ayada dugsiga hoose markay dhameysay ay joojisay iskoolka bagaas aabeeda ayada dhintay agoonnimo ku kortay inay reerka u xoojisay iskoolka uga tagtay marka ayadana bari jirtay carabiga iyo xisaabta labadaas ayada aad noogu dhigi jirtay noogu celi jirtay oo nala fiiri jirtay macnaheedu marka iskoolka aan ka nimaadno ma jiraan waxyaabaha qaar oo marka hadda aad sameynaysid aad xasuusato hooyada oo tiraahdo wallahi waxaasi waa wixii 100% aan ka soo gaaray hooyaday oo mar walba aan niyadaada ka bixin marka laga tago buugga oo aad waxyaalo badan ku qortay ma qofku uu saameynta badan nolosheeda ahaydba haday tahay inaan karti aan qof karti leh inaan noqdo haday tahay inaan runta aan ka tagin marna haday tahay in qiyamka bulsho ee akhlaaqiga oo dhan dadka qofkana baray ahayd inaadan sheeganin oo dadka aadan tabardarradaada iyo aadan u sheeganin mar walba oo ilaa ay duruuf adag qabato ma ahane because ayada adeegaas ayada nagu soo korisay iyo in qofku uu yahay qof markasta dadka kale u naxariista qof naxariis badan ee very kind runtii aad u naxariis badan oo ka warqaba dadka kale ee dariska iyo dadka naga sii duruufaha liitay aad u xeeriya oo ka warqaba oo duruufooda aad uga warqabay haaji dadka u qaaraama u dhaxgal xaafadda qofkii markaas tabaalaysan aad looga jeclaa xaafadda oo dadka isku xiraa qofba binaadamka qofaa dadka networking iyo xiriirka ku fiican dadkaasay ahayd marka inaan markasta dadka ku xirnaano oo bulshaagu noqono oo dadka kale aan ka warqabno oo u advocate gareeno u qareeno runtii waxyaalaha ayada ay nagu soo barbaarisay ay kamid yihiin waxa jira hooyo sida ku cad buugaaga waxay ahayd qofka qaabeeyay inaad maanta noqoto siyaasi ama sabab u ahaa inaad u hadasho si xor ah oo aad soo istaagto meel adigoo ku dooda ayayna noqon karto madaxweyne Soomaaliya dawladda Soomaaliya aabahana sidoo kale wuxuu kamid ahaa ciidanka labadooduba waxay haayeen hal abuur hooyo waxay ahayd dadkii buraanburu jiray SYL aabana marka laga hadlaayo dhacdadii mid kamid ah dhacdooyinka halkan ku qoran oo saameynta reebay oo dadka aynu uga tagayno daawadayaasha inay akhriyaan gabay buu sameeyay inkastoo gabaygii uu ka halaabayo buuggii aad gabayga ku qortay uu ka raacay xiliyadii dagaalka adigu ma isku dayday inaad noqoto qof hal abuura weligaa ma curisay maasooyin taxaya gabayo maadaama hiddo aad u leedahay ma curinin gabayada aniga walaakii aan diiwaan gelin runtii ma ahayn aabahay kaliya familkeen dhana reer gabya ah aabahay adeeraday awoyaashay ayayaalkay familka dhana waxay yihiin famil gabya markii reeraha la dhex joogo waan ogtahay reeraha Soomaalida markii la joogay miyiga qofka poetry-ga ama qofka gabya wuxuu maanta wuxuu ku jiraa meesha la yiraahdo intellectualka dadka aqoon-yahanka asaa matalayay sheekhana wuxuu matalayay culimada qofka hogaamiye qabiilka dagaalyahanka iyo hogaankii qabiilka siyaasiga la dhihi karaa ayuu matalayay marka anaga family ahaan dad oo dhaqan u leh gabayga hiddo u laanahay rabaa gabayga sida u badannahayba hatta qofkii aan gabiyo waa gabay qabad hal markii loo sheegay gabayga uu qabtaa waxa laga yaabaa in si kale malaha inay ii gashay oo ama hadalka ama qoraalka suugaanta inay si kale iigu maaxdaa laga yaaba oo aanan gabayga igu soo maaxan sababtoo suugaanku waa kala duwan yahay gabay un kaliya ma aha qoraalka kamida hadalka kamida inaad qori karta script writing waxaan dhahaan riwaayadaha filimada inaad qori karta kamida kuwaas kuma naadiin laakiin waxa isleeyahay wax uun hibadaas inaan ka haystaan aan dareensanahay waxa ku jira buugaaga sheekooyin hooyo kaaga sheekaysay waxa kamid ah dagaalkii burburkii Soomaaliya markuu dhacayay hooyo inay ku sugnayd magaalada Burco sababta uu joogtay inay ahayd gabadh ganacsato ah oo badeecada isku bedesha Muqdisho ama koonfurta Soomaaliya ilaa iyo Burco tagta
waxay saaxiib la ahayd dumar badan oo kala duwan oo ay ka mid tahay Eeda Maryan oo iyaduna reer Burco ahayd oo ganacsiga wada lahaayeen waxaan doonayaa inaan u akhriyo dadweynaha sheekadaasi Burco ee hooyo kaaga sheekaysay ka bacdina wixii falanqeyna ama su'aal ah ay daawadayaashu jeclaan lahaayeen inaan ka weydiiyo aan ku raaciyo sheekadu waxay odhanaysaa sida tan hanti aan badnayn oo aabbe nooga dhintay ayay ganacsi gadis ah ku bilowday waxay isaga gooji jirtay gobolada waqooyi iyo buulo barde iyadoo Burco ku sugan halkaasna geysay badeecado ayaa waxa ku qabsaday dagaalkii qaraara ee dawladii militariga ahayd iyo SNM qisooyinka xanuunka badan ee nooga sheekaysay waxaa ka mid ahaa inay magaalada ka qaxeen iyagoon ogeyn meel ay u socdaan waxay ka tagtay badeecadii ay suuqa geysay waxay isla socdeen Eeda Maryan oo reer buulo barde ahayd laakiin Burco ka soo jeeday oo ay ganacsi wada lahaayeen waxay nooga sheekaysay in haween badan oo caruur wata ay la qaxeen haweenka ayaa caruurta dhabarka ku sita qaarna gamcaha ay jiidayeen waxay nooga sheekaysay inay haweenka qaar ay jidka uga tageen ubadkooda qaar markii ay kari waayeen inay isku wataan tabaryari ka dhalatay gaajo iyo haraad iyo waliba ka dhuumasho ciidanka dawladda ah waligay isma oran ayay tiri riyadii aan qabay markii aan dhalinyarada ahaa ee xurriyadda loo diriraayay ayaa sidan isu bedeli doonta ciidanka qaranka Soomaaliyeed ayaa duqeynayay dad rayid ah oo Soomaaliyeed diyaaradihii Hargeysa ka kacayay ayaa isla Hargeysa Burco iyo Berbera duqeynayeen manay ahayn mid aan marna sawirtay waxaan u arkay inay tahay qisooyinka noocan oo kale ah qiso kugu reebtay saameyn weyn walina waxay la tahay waxa taagan inay dad Soomaali ah ama qabiil ha isku dilaan ama siyaasad ha isu laayaan ay sidii joogto ay taagan tahay tan iyo maalintii hooyo sheekada kaaga sheekaysay ilaa hadda miyaad aragtaa wax isbedel ah oo yimid ma waxaan hadda si dhameystirto waxaan arkayaa hadda inaan ku xiray waxay ka dhacay laascaano inaan ku xiran jecel hadaan qaldanayn oo niri maamulka Muuse Biixi wixii markaas lagu sameeyay Hargeysa iyo Burco iyo gobolada waqooyi inuu asaga hadda maanta oo sameeyay dabcan waa soo noqotayba oo markaas waxa la duqeynayay dabcan aan u maleynay buuga aan qoraayay ama socotay dagaalkii laascaano ay ciidamada Soomaaliland ay duqeynayeen degmada laascaano runtii waxa isbedelay kaliya taasna waxay ahayd dawlad awood sheeganaysa oo dad shacab ah duqeynaysa laakiin wixii ka dambeeyay waxa la galay in qabiilada isdilaan oo qabiilo kale ay ku duulaan ay laayaan oo inkastoo magac dawladeed ay soo wadanin laakiin qabiil u xoog sheeganayay waxaas muhiim ah in himiladii hooyada ay ka lahayd xorriyadda markii ay u dagaa aswaacel iyo shantii Soomaali in la mideeyo iyo hiraalkii iyo hamigii iyo maaragtay wixii ku jiray damacii ku jiray in ay marqaati ka ahayd ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed oo dad shacab ah duqeynaya macnaheedu meeshaas waxay ku tusaysaa in yidiiladeedii iyo hamigeedii iyo himiladeediiba ay meeshaas ay ku dumeen oo waxa saas yeelan ay yihiin dadkii maaragtay siyaasadda hogaaminayay oo dalka ay islahayd berisamaad ay deji doonaan dadka Soomaaliyeed marka xanuunkaasi runtii ayada aad ay u dareemaysay in askari Soomaaliyeed oo dharkii militariga xiran oo dareyskii xiran askarta agteeda qiimay ka lahayd inay dad shacab ah oo Soomaaliyeed ay markaas ay duqeynayeen iyo inay haddana waxa xanuun lahaa inay wixii sii socdaan oo ay maamulo kale ay hadeertaan wixii hadda sidii haddana ay u sameynayaan dadka shacab oo ay awood sheeganayaan ilaa qofka dhibka noocaas soo maray waxay ahayd inuusan asagana usan noqonin ku geysanin marka runtii qisooyinka aad u xanuunka badan ay kamid tahay waxa lamida qisada ninka maaragtay saldhigga Buuloburta anagoo ku jirna ciidanka ardayda gurmadka ahay la yiri ciidankii waxa loo qaadayaa gobolada waqooyi saldhigga ku jiro dhan oo la yiri ardayda gurmadka kaliya looga tago meesha laakiin ciidanka dhan hala qaado oo marka ninka Cabdi Madoobe uu leeyahay war aniga mishaarka iguma filna aan ka helo militariga ilmaheygana waa rajo hooyo ma laha biibitaan uga xoojiya aan wax ka kaba biilkooda marka aniga aado dagaalka aan baxo ilmihii wax
iga biilaya ama iga helaya ma leh oo la leeyahay fuul gaariga waxaas waxba kama jiraan taasaanan ogeyn anigu waan ka tegay degmada xamaraan ka aaday Burburta waan ka tegay laakiin ma garan karo runtii inuu ku dhintay in kale laakiin dad dhalinyaro badan oo annaga loodkeennii ahaydoo ayagoo markay form 2 marayeen akademiyada aaday oo soo qaatay xidigle oo maalintaas saldhigga ciidanka imaanay ku jiray oo badan oo dhintay waa garanaya oo dagaalada ku dhintay laakiin cabdi ma garan karo waxaa kaloo asna jiray nin maaragtay qoray jiiba waday oo ciidankii xamar ka yimid ee Burburta ku hakaday ee ciidanka ka qaadanayay ka midka ahaa oo qorigii inta soo kaxeeyay gaarigii jiibka hay saraakiishii saldhigga Burburta iyo kuwii kale xamar ka yimid ee dagaalka u socday meeshay joogeen soo dhaxdhigay gaarigii ay ka wada boodeen inta la xiray asaga naloo sheegay mar dambe inta la toogto jidka meedkiisa lagu tuuray marka qasooyinka hooyo ay naga sheekaysay kuwa anaga u joognaba oo dagaalkii sokeeye iyo dagaaladii u dhaxeeyay jabhadaha iyo dawladii sii dhaceysay ee militariga ahayd runtii aad u xanuun badnaayeen waxaa jirta oo bugaga raacsan buuga aad ku xustay ee markaad aragtay ciidan badan oo soo socda adigoo xilligaas carbis shaqo ku jiray oo sanadkii labaad ee shaqo qaran ama gurmadka ku jiray inaad aragtay aad dhowr jeer la hadashay sarkaalkii oo cid markaad weydeen intaad qoriga tuurtaad aragtay oo gashay wabiga oo baxsatay taasi maciyaalnimay ka ahayd mise cabsi ma ida cabsi afka cabsiya dabcan ciidan saldhigga wuxuu ku yaalay waxaan u maleynayaa laamiga Burburta waxay dhacdaa laamiga weyn ee ilaa Hargeysa waqooyiga taga mar ah marka saldhiggan wuxuu ku yaalaa wuxuu u jiraa laamiga wuxuu ka fogayaa dhowr kiiloomitir marka habeenay baabuur soo leexato waxaan arkay unusual waxaan arki jiray ma baabuur isdaba socota nalkeeda meesha laga soo leexda laamiga laga soo leexda saldhigga ilaa saldhigga afkiisa isaysata marka waagaasna jabhado iyo gorgor nin la yiraahdo iyo ciidamo kale oo dalka soo galaya iyo wax un baa aad isugu cabsi jiray iyo xataa USC markaas inkastoo xoog badnayn waa la sheegay magaceeda markaan arkay waxaan caadi ahayn oo waxaan kiciyay sargaalkii kama postal ii jiray qofka markaas adiga ka sareeya oo mas'uuliyadda haya iyo sargaalka heeganka oo saldhigga sargaalka ama xidigla ama la xidigla sargaala jira markaas heegan kale kama postiyan raadii waan waay sargaalkii raadii waan waay waxaan soo socdo guudayna waa arkay marka qoyaro karabina aan haystay karabinka inta iska tiiriya ka tagay aniga aan webigan aan ka gudbay marka ka carar meeshii marka arkay xabad dhacaynin waxba jirin waxa tiri naftu orday kugu aamintaa ko dabcan la feega la caray marka arkay in ay saxabad dhacaynin wax dhacay jirin waan soo noqday marka tartiib waan soo dhageystay wax marka oo isbedel marka arkay inaan ku soo noqday xeeradii ku soo noqday qorigii meeshii ka qaatay ka boosti Italy saldhigga lahana way imaadeen ayaga naftooda meel ay jireen runtii ma garan karo markaas waa marka subaxii la faylinayo ciidanka dhan oo leeyahay hal la qaado ciidanka xerada jooga saldhiggana uu weyn yahay Burburta ku yaal saldhig markii ciidanka la yiraahdo waa meel weyn oo qaybaha ciidanka dhan degan ama infantry-ga lidka diyaaradaha fiicda goobta ciidanka ministiyaasha zaadka waxaas dhan waa degan yihiin dadka ciidanka dhan hal la qaado ardayda kaliya laga tago gurmadka ciidanku way kaftamaan ardaydu way kaftamaan saaxiibadu way kaftamaan ma lagu ogaado inaad baxsatay intaad qorigii yaraa tiirisay oo carartay mise waayahaga laabta ku haysatay lama ogaani sababtoo ah maba la tabi karin ba ciidankan yimid xoog badnaa marka waxa ma la tabi karin qof maqnaa iyo qof ma la tabi karin runtii waxaan filayaa xabsigii ugu horeysay noloshaada gashay wuxuu ahaa markaad Muqdisho tagtay ee askariga habluhu ay dakhrayaan ee sheekada dheer ee ku jirta buuga aad ka reebaysa hablaha kadibna aad ogaanaysay inay islaani faji idin dhigtay sababta la idin xidha ay tahay kaas maxabsigaaga ugu horeeyay aad gashayba noloshaada dhalinyaro saddex anigaan ahayn dabcan saabo ku sheegay gabdhahana waagaas waxa la jiray aqoon muslimiin gabdhaha xijaabani ahaayeen marka askariga gulwadahaana oo ayagoo ereenay gabdho ereenuna dakhrana marka ayaga malaha soo dabray marka de waan ka reebnay marka waana la xiriiriyay waana la xiray dhibaatada dhacda marka waxay tahay buugasaan ku sheegay 20 beri aan xirnayn afarteena waana loo gurmaday habareertay marka aan la deganaa
ninkeeda la naxariisada waa dhintay gudoomiye degmada Gabiley ka ahaa degmada Gabiley ka ahaa uu joogay markaas magaalada ku sugnaa taliyaha saldhigga xaafadan deganeyn meeshan ku xiray taliyaha saldhigga deganaa wiilasha nin kamida walaalkiis wuxuu ahaa sargaal saro nabadgelyada ka tirsan mid kale wuxuu ahaa nin madaxa ay dawladda ka ahaa annaga waa la gurmaday ilaa xeeladaha booliska la keenay wax kasta oo la sameeyay waa la sii day waay waxaan noo feelgareeyay inaan darbiyada ku qorno madaxweynaha dhaco oo aan ka tirsanahay ururka USC aan la shaqeysano waxaas noo feelgareeyay markii dambe haweeney xisbigan dawladda ka tirsan oo saameyn leh ninka hooyaday habrtii qabana la dhalatay Xaliima Kaaraan la yiraahdo waxay ku nooshahay dalka Australia yaa wixii soo ogaatay ayadana furdaamaysa marka wixiina wax kala ma ahayn islaanta xisbiga hanti wadaaga ka haysa saxaafadaas aan deganeyn Xamar Bile yaa gabadheeda waxay kamid ahayd gabdhaha qaan muslimiinka ee ka noqotay ayadana wadaad Sheekh Cabdi Liila xaafada ganoo Suufiye ku xirneed Suufiyada ahayd mar gabadha u diideysay inay waxaas ku biirto ninkan iga soo reebay tiri annagii markaas inagu imbilkeed galays waxyaalaha marka annaga dhan waxyaalaha aan karigitaliska ku nacay runtii waxa kamid ah qofka asagoo ogeyn ayaa magaciisa qof walba isticmaali kara hadda annaga dhalinyaraan ahayn maxkamad badbaadana loo diray inaan madaxweynaha hadda caliya darbiyada ku qoreen oo ku masabiday laakiin qofka waxa sameynaya dan kale oo laha inanteeda laga soo reebo oo wadaadka Suufiga ay ku xiran tahay loogu xiriir rabtay ikhwan muslimiinka ay ka gelin marka waxa garanaysaa marka qofku in asaga dantiisa oo ku magac dili karo qofka madaxda hadduu system kalitalis yahay oo qofka lagu cabsi gelinayo leeyahay dadka adiga ka soo horjeedaan dadka adiga kuma aamareynayaan ay ku dhagar magaleegayaan dadka adiga ka shaqeynayaan si maanta oo dhan qofka cabsi loogu abuuro in uusan oo cabsi joogto ah ku noolaado markastana dadka u baahda asaga marka kalitaliska waxyaalaha aan runtii aad iyo aad aan anigu ugu dhibsaday kamid tahay marka laga soo tago kaasi inuu ahaa xabsigaagii koowaad xabsiyo kale kumaan arag buugaaga oo ku qoran haddii aan la duufin miyay jirtaa xabsi kale jir 2017 waa la xiray markii la soo weeraray guriga waan badbaaday laakiin waa la xiray imsa saacad xidhneed xilligaas inkastoo waxaan ku xirnaa xarunta nabad sugidda waa xabsi marada xoriyada laga qaado waa xabsi laba habeen laakiin markan waad ka duwaneed Cabdiraxmaan ka yaraaye la xiray waxaad ahayd Cabdiraxmaan saameyn dad badan u hadlayaan waayaha xabsiga marka la isku soo duubo maxaad ka sawiri kartaa marka adoo yarna lagu xiray adoo weynna lagu xiro siyaasiga wasaad fiican xabsigii hore dad badan oo dambiilayaan la xiray niman dhalinyaro oo secondary dhameeyay imtixaan jaamacad galay innocent iska bari ah waxba geysanaan ahayn dadkii marka saldhigga wadhiga lagu xiray dadkiina la xiray midkan wuxuu leeyahay qofaan soo dilay midkan wuxuu leeyahay waxaas dad dambiyo weyn ku xiran ya saldhigina lagu xiray la geeyay macni oo hatta waxa kamid ah nin sheegtay inuu nabi yahay wixii markii la soo feeliyay markuu taliya saldhigga yimaado ama qaybta dadku waa la soo feeliyay qof walba waxa lagu soo xiraa loo sheegaa mid baa yiri nabi hebel nabina uu sheegtay dadku xirna mid dad soo dilay marka dad wada criminal oo dambiye waaweyn kuwa daroogo lagu soo qabtay meeshiina la geliyay anagoo dad dhalinyaro ah weligeen aanan xabsi arag marka xabsigaas aad u runtii oo xanuun badnaa oo naxdin badnaa anaga marka cabsi yaan walwalan aan ku noolaa jirnay kan dambe markii la xiray waxa la isku dayay markii hore in la igeliyo meel aad u xun oo wasaq badan oo ur badan oo qaab daran oo dhulka hoostiisa ah marka ninkii taliyaha ka ahaa xarunta ay yimid wuxuu dhahay adeer nin aad yaqaan muxtaram ah runtii ilaa haddana abaal aan uga hayo wuxuu dhahay aniga waa la soo kiciyay waa midnight waxa la yiri qof weyn lagu keenaya argixisaan buu isoo dhahay aniga qofka la isoo wado marka adeena tahay ma aan filaynin marka amaraan la igu siiyay meeshaas inaan kugu xiro mana kugu qalanto weyn oo siyaasi oo muxtaram ah tahay laakiin amaraan la soo siiyay marka yaa ku soo siiyay kusimaha taliyaha nabad sugidda markaas nabad sugidda taliya ma lahayn Cabdullaahi Sambalo shaa xilka laga qaaday nin kale kusimaha ayaa meesha hayay oo hadda wasiir dawladdan ka ah marka wuxuu yiri waa ku qasbanahay meesha inaan kugu xiro
ماشي يعني تينو دب ما لها قول هذه واجب هذا قدو ماشي يعني waa dhaawacna horta dhaawacii iga dhadhayeen aan ku durnay dhahay marka cirbad xanuun aan ku dhufnay cirbad ma rabaan ku yahay marka meeshii markaan aan galay oo adiga ku jiro 15 daqiiqo 30 daqiiqo camal iyo ii soo noqday ninkii markaas uu yiri waa leela soo hadlayo ninka meel intii dhaantay geeyaa la yiri marka waxaan ogaaday mar dambe inuu sanbalooshi ka dambeeyo yiri ninkii ku simahay oo la hadlayo war ninkan meeshaan laba maalin ka badan lagu mahay kare isku ceebaynina meel dhaantay geey markaas la igeeyay meel dhaanta sidii qol ku dhow oo ku xirnaa hadda ninka wasiirka awqaafka arrimaha diinta Mukhtaar Roobo oo markaas u xirnaa dawladda qol ku dhow ya aan ka dheerayna la igu xiray marka oo kii yara dhaama marka laakiin wax kasta oo xiriir la ii diiday inaan qolkaas ku jiro kaliya marka waxa rido laga qaaday telefoon ma haysatid TV ma haysatid radio ma haysatid qolad ku xiran tahay ma xasuusatay heestii in waqtigu cajiib yahay maxbuus ciidan baa garan absolutely markaas ma xasuusan laakiin heestaas aniga ugu dabaqmaysa macnaheedu wali waxaan ku jirnaa cutubkii koowaad ee ahaa noloshaada waayahagan dhex jabaaxayna buuguna runtii wuu weyn yahay oo 300 plus oo page weeyaan ama book waxa oran kara anigu buunbuuninaynin oo aanay daawadayaashu u arkin inay buunbuunintahay inuu fiican tahay inuu qof kasta akhriyo gaar ahaan dadka doonaya inay siyaasadda soo galaan oo salaanka siyaasadda ay soo koraan waxa jirta xilli aad imtixaan u gashay jaamacadda Muqdisho imtixaankaas oo dad badan ay galayeen joornaalkiina lagu soo qorayay xiddigta October dadka magacyadooda ugu sareeya marka aad kamid ahay dadkii aan ku guuleysan inay meesha yimaadaan waliba adoo sheegay inay jirtay isbuusis badan oo dadka in garab la isa siiyo oo kor la isu soo qaado si jaamacadda loo galo ay ahay bal qisadaas oo kale iyada maxaa daawadayaasha uga sheekayn kartaa waa su'aalaad fiican qiso cajiib ah runtii taxaanka ka soo baxnay taxaanka 6 maada la qaaday hal maalinba kiisu u dhibadnaaba jimcayna ahayd salaad jimcaana wana ka rabay anigoo dadka markaas diinta ku adag oo haystaan ahaa oo saxwal islaamiya ama wixii dhigi jireen islaamiyiinta ka tirsanaan ahaa saambuu ku sheegay salaada aad iyo jimcada muhiimad ay ugu lahayd maadooyinkan 6 hal mara ka shaqeynaysa marka waan dadaalaan intii tabartay laakiin waxa inii jibiya waxay ahayd markaan imtixaan ka soo baxaan waxaan arkay galaaska igu dhaganaa ee kii ku sii dhaganaa oo ardaydii looga shaqeynayay imtixaankii macallinkii ugu shaqeynayay oo wardiinayay kormeeraha loogu talagalay asaga ugu shaqeynayay ardayna oo ilinka taagan yahay kormeerihii guudba oo fiirinayo dugsi sare raayugaas la yiraahdo aan ku galay oo markaas cusbaan dhismihiisa oo gabayagii loogu magac daray Soomaaliyeed ee raayugaas loogu magac daray marka aad iyo aad runtii anoo jabsanaaba ka soo baxayba waanba ogaadayba imtixaan la qishay anagana ninkii neelana uu nagu adkeeyay macnaheedu taanka nooma saqishin ninaad adag oo ahaa marka niyad weyn kama lahayn ardayda jaamacadda ay qaadanaysa ma badnayn kun arday ahaayeen jaamacadda Gahayr 2 sano soo marnay shaqo qaran imtixaankii aan galnay imtixaankii marka niyad jab weyn oo runtii oo aniga igu riday man inaan ku soo bixayna waa ogaaba sababtoo ah haddii imtixaanka la qisho waxa lagu dalacayana garab ay yihiin cadaaladii iyo nidaamkiina uu sii baaba'ay dalka way ii muuqatay inaan fursadeeda ay weynay sababtoo ah laakiin buundadii secondary aad u fiicneed oo dadka dadaalka badan aan anaga xataa ani kaliya ma ahay walaalahay anaga dhanba dad buundooyinkooda iskoolka fiicnaayeen aan ahayn waxbarashadana ku fiican waalidiinteena sabab u ahaa runtii markaan waayay shaqana ma jirto dalkii oo shaqadii aad u yarayd shaqo ma jirin waxbarashana aad helayso sii wadanaysana ma jirin marka rajo la'aan weyn ayaa xilligaas dalka galay waana xilligii qofka dhalinyarada ah oo hamiga ka lahaa dalkiisa iyo dadkiisa inuu wax u qabto aadan fursadna helaynin meel wax ka qaban kartana aysan jirin in jab weyn ay ahayd runtii waa midaan dhahay dhalinyaradii markaas waxay u qaybsameen qolo islaamiyiinta raacday qolo jabhadihii iska raacday iyo qolo dalka inay ka dhoofto u howlgashay oo meelo badan oo dadka laga tahriibiyo oo jiro Norway iyo meelo badan oo xajil dhigi jiro dadka dhalinyarada dibadaha aaday iyo dadkooda dibadaha jiraan iyo waxa leeyamanka iyo waxa la yiraahdo waagaas ay aad u soo bilowdeen runtii waxbarashadan ku sii soconayaaye waxaad ahayd buuga ka muuqato qof waxbarashada aad u jecel sababtoo ah wadamo kala duwan oo Suudaan iyo Malaysia ba kamid tahay wax ku soo baratay
marka laga tago Soomaaliya oo ah wadankaaga hooyo Soomaalidu qofka adigoo kala ah waxay yiraahdaan waa iskoris oo isaga iswaday sida buugaa ka muuqatana waxa ahayd qof aan garab la siinin ama aan la soo bari taarin laakiin isagu soconayay mar aad scholarship heshay iyo mar aad isbaraysayba oo adigu aad isbixinaysayba marka laga soo tago nolosha iskorisnimada waxa jirta iyaduna qisooyin qosol leh oo ku jira buuga waayihii Suudaan baan ugu horeysiinaynaa inanka Djiboutiyaanka iyo ninka reer Muqdisho markay iswareysanayaan ay isfahmi waayaan bal sheekooyinkaas oo kale qosolka ama ka arday badan meel la isugu keeno oo wada Soomaali ah haddana iyagii aan lahjad isku fahmeyn maxaad ka xasuusan kartaa Djiboutiyaan reer Koonfur ah labadaba Soomaali ah laakiin midna Djiboutiyaan midna reer Koonfur ah marka ka Djiboutiyaanka noo sheekay aniga maan joogin markaas laakiin asaa ka sheekay marka waxay ku fiicneed Suudaan marka ardayda Soomaalida galbeed ogaadeen ka timaada kuwa qoyi ka yimaada koonfurta kuwa ka yimaada Soomaalidan Kenya dhinacaas NFT dalkaas ka yimaada waa la wada joogay macnaheedu marka waxa la dhigi karaa waa meel ayba multaqa thaqaafada anaga Carabi dhaana dadka kala duwan ka thaqaafadaha ama dhaqamada kala duwan ee Soomaalida meesha isku barteen waay marka qisooyinka aad u badan yihiin taas kaliya maaha laakiin tan waxay cajiib ku ahayd wuxuu yiri ninkan Djiboutiyaanka markaan soo degay yarkan Soomaaliya leela soo dejiyay qolka markaas uu walaalo soo dhawow haye wuxuu dhahay muxaadaradii aan u socdaa macnaheedu waa laga jarkii muxaadara xaq waxa la dhahaa galaaska kala aaday wuxuu dhahay shukumaankaas qaado musqushana jiiradaas ay ku taalaa liyan balbeemada meeshaas taala marka ka soo baxdo musqusha isku qabooji markaan soo noqdaan israacina ugu yiri marka waayaha iska eeyo dhahay marka laakiin wuxuu dhahay hal eray wuxuu sheegay kama ana garanin waxay shukumaan ma aqoon musqulna ma aqoon qubaysna ma aqoon jiirana ma aqoon liyan balbeelmana ma aqoonin armaajada ma aqoon armaajada kala soo baxo wuxuu sheego dhan baan waxba kama garanin waa iska sugay hadhowdii markuu ka soo noqday galaaskii anoo fadhiyo u yimid oo dhahay war maxaa kugu dhacay walaalo waxba iguma dhacay laakiin waxa ay tiri waxa kama fahmin adiga Soomaaliya ku hadla Soomaali ma tiido ha Soomaaliya ku hadlaysay markii dambe wuxuu yiri warsaasan ka wadaaho wuxuu dhahay shukumaan kan waa shukumaan maxaa waaye kan waaye hatta anaga tuwaalan dhahna musqusha ma asii Djiboutiyaan oo musqusha maxaa waaye kaniif maxaa waaye asagana kanne marka dad erayada iyo isku wareerkaas waa la isla qabsanayay ana xataa malaha u dhacday nin wareergiisa Cabdalla Boos la yiraahdo yaa meel la sameynayay waxa la dhigay Suudaanta waa wadan kulul marka waxa la sameeyaa waxa la dhigaa bira inta la dhiso idinka jalxada dhahdaan reeqooyiga annagana ashuuna dhahnaa la gelgeliya biya laga buuxiyaa kooba la suraa dadku iska cabaa marka jidka maray jaamacada marka meel saas oo kale laga sameeyay oo ashuumankaas ama jalxadaas in lagu guro markaas biriyaha marka la dhisay markaas wuxuu ugu yiri Cabdiraxmaan masaajidka ka wada nimid maxaad u malaynaysaa meesha laga dhisi doono markaas aan ashuumun baa la gelgeli doonaan ku yiri markaas ani ma u malaynayo in jalxado laga meesha lagu guri doono u malaynayo wallahi waa nasaas ay rataa iska kala tagna marka maalin kale sultaan kula ani ma dhawdo yiri meesha jalxada la gelina kuwaas jalxadiya ku jira markaas ku ani ku araba ashur oo qaarnaa baatiri ashun muxuu yahay jalxada maxay tahay tiradi marka waa meelaan runtii aan dhaqanka iyo Soomaaliya dhexdeeda lahjadaha kala duwan oo lagu baranayo waxaan xasuustaa nin kale oo shariif oo waliba tabliiq oo masaajidkan duu jiray iyo u tagay markaas wuxuu ku yiri aniga maanta kaawida amaahi marka kaawida ku soo reebo markaas uu ku yiri waa iga hadlaysanta ninkan uu jeedaa inay taala kaawida halkaas moogta markaas uu ku yiri war hal shaati baan ku soo kaawiyeysanaya isii markaas uu yiri waan ogahay laakiin waa hadlaysanto weeyaan ninkan waa shariifku masaajidka ka dujiya waa nin sheekha marka waxa isku qaybqaabeyso u dhahay ninka xataa baash muu meel iga geliyo iga qariyo alla anaga koonfurta halaa waxa loo yaqaanaa inay baash aysan shaqeynaynin kharibanta ninkan halaawidu wuxuu u yaqaanaa inay luuntayba uu u jeedaa kaawidu arkaya moogta markaas hoosta waxa iska yiri ninkan weyn oo sheekha ah oo beenta sheegaya hadduu xataa ku diidayo muu ku qarsado
mardaba waxa ogaado dhahay anoo ninkii u calool xun oo beelo inuu aaminsan mardaba waxa ogaado yiri in oo ciladaysan tahay marka waa la baranaya marka waa la kaftamayay waa la isdhexgalayay dhaqamadaas kala duwan runtii xiisay lahaayeen oo rajadaas kala duwan suudaaniyiintu waa dad aad u dhaqamo fiican dhaqamada aanad ilaawi karin markaad ku soo kacaantay maxaad ka sheegi kartaa suudaanta runtii allah hadda badbaadiyay dalkoodii dhibaato weyn ka dhacday laakiin waxaan rabaa intaan taas ka jawaabay inaan runtii aan dadka Soomaaliyeed u sheego dadka Soomaalida aad ay ugu gurmadeen ardayda Soomaaliyeed ee kumanaan waxaan u maleynayaa waxaa lagu qiyaasaa anaga dadkii difacadihii labaad ee markii tagaanahay laba ama saddex laba difcad oo kale naga horeysay ardaynimada waxaa lagu qiyaasaa xilligaas laga soo bilaabay ilaa hadda 50 kun oo arday inay wax ku baratay Suudaan oo Soomaali ah oo deegaanada Soomaalida kala duwan ka timid marka waa dadka ugu badan oo fursadaha na siiyay markii laga tagay Soomaalida soo hijrootay Yurub iyo Mareykanka markii laga tago runtii waa dadka ugu badan oo fursadaha Soomaalida siiyay inay wax ka bartaan marka Allah dalkooda macnaheedu nabad iyo uga dhiga xasilooni hasiyo dad fiican ay ahaayeen intaas waxaa dheer ardayga Soomaaliga ardayga Suudaanta amal ka xisaabnaa waa inta ardayga Suudaanta fiiga laga qaado ama scholarship-yadana waa badnaayeen marka aad noo soo dhaweeyay ahaayeen oo qalbina furan Soomaalidana aad u jecel waxyaalaha waa badan yihiin waxyaalaha ay cajiib ku yihiin Suudaanta horta waa balad dadku aad wax u akhriyaan waxyaalaha aan ka soo faa'iiday ka mid tahay akhriska midda labaad waxay ku fiican yihiin waxaa la yiraahdaa balad milyan fanaan fanki aad u xiiseeyaan fanki aad u jecel yihiin marka Soomaaliya dadka aad u yaqaan waxa kamid ah Allah naxariistay Xaliima Khaliif Magool marka xataa markaas waxay ku leeyihiin zoolda min nas Xaliima ay ku leeyihiin waayo sheekadii jacaylkii ma lagu qoray wali doox ma loo shugay heesaheedii aad u jeclaayeen markaas kaliya ma ahayn marka waxay ku leeyihiin markay dadka xataa ku barayaan hadda ka hor safiirka loo sheekay wuxuu yiri meel waxa isku reception isku nimid safaaradda dadka reception xaliyada markii safaaradda ay xaflad sameeyso dadka marti qaado marka inta badan wax dhan waa istaagi ku dhamaadaan ma wala fadhiisto marka wuxuu ibaraa u dhahay mid Suudaani wuxuu ibaraa safiirka markaas uu leeyahay Suudaani kale uu ibaraa markaas uu yiri wallahi zoolda min nas Xaliima marka waan ka xanaaqo dhahay dadkii Xaliima waay oo yiri dhahay marka anigana safiirkii ahay moogtahay marka aad ay fanka u jecel yihiin Suudaanta akhriska u jecel yihiin dad samaaxa badan waaye tasaamax badan macnihi oonan marka nin saaxiibkay marka wuxuu yiri inta badan gurtay wax ku qoraan dad gurtay wax ku qoro waay gacantan bidixda markaas aan ku yiri midaan la sheekaysto yiri marka waxaan ku yiri dhahniyo maxaa wax ku cuntaa marka gurtay wax ku markaas uu yiri midigta markaas uu yiri alaab wax culus daaqadeysana maxaa ku qaadaa markaas wuxuu yiri midigta markaas uu yiri su'aal ugu wuxuu yiri hadaad qof dirirtaan حاجات كفر تنتهي مركز انت وقالين كي حقوق راي دغه wuxuu ku yiri leesh ana atashakal ma ahad ana ma qof wada kala sidaba dad marka ana hadda waa la yaabna dadkii wax soo bartay ha Suudaan saan isku dagaalayso waxaan la yaabanahay waa ilaa hadda dadkeena Suudaan ka yimid sababtoo Suudaantu markay dagaalamayaan hatta waa isku imaadaan maanto dhan waxa laga yaabaa sida ugu daran inay isku aflagaadeeyaan ama isku caayaan oo laakiin gacan isku ma qaadaan macna intaan weli inta Suudaan joogo qof la feertamay ma arag taqriiban wala yaaba hadda cunfiga iyo violence gacan hadalka meesha dad marka violence badan ma ahayn dad waxa waaye dadka inay marti sooraan jecel maanta dhan wuxuu ku qasbaa in wax la cunto ramadaanka oo kale jidkay gogolaan oo dadka cuntada ay u sii dhogaan ay siiyaan marka dad aad iyo aad iskaga tasaamuh badan laakiin dhaliilooda waxa kamid ah wahsi badan yihiin marka waxa la yiraahdaa hadda mid Suudaani hadda ka hor waxa la koobku wuxuu qaaday wahsida markaas loo yeeray nukadka ku badan jooga ku badan kaftanka marka waa loo yeeray waxa la yiraahdaa hebel oo ku guuleystay koobkii wahsida soo doono mid u dhow intuu fiiro wuxuu dhahay adiga soo qaad asaga xataa uu qaaday marka waxa wahsidana waa lagu sheegaa dad wahsi badan inay yihiin ayadana waa lagu sheegaa marka wax badan aan runtii aan Suudaanta aan ka dhaxno waxa kamid ah fikirka horta ah dad aad u niqaash badan waa dood badan marka waxay qabaan jaamacad kasta iyo meel kasta rugni niqaash wax la yiraahdo meel lagu doodo rugni niqaash waa memberka doodday meel walba ka furan wada aad u dooda marka dood badan Suudaanta wax akhriya oo dooda waay
waxyaalahan ka faa'iiday kamid tahay niqaashka iyo doodaha iyo inuu qofka afkaartiisa fikirkiisa uu furfuro uusan xirnaanin meel ku koobnaanin waxaan kaloo arkay ardayda reer Suudaan inay samaystaan afur wadareedyo casho wadareedyo oo yihiin dadka ugu badan ee isu yimaada taasoo kalena waxaan oran karaa malaha dhaqanka xagga ku soo barbaareen baa saameyn ku leh maadaama Suudaan ahayd wadan faneed adigu heesaasaad isku tihiin aad iyo aad heesaa suugaanta guud ahaanba aan u jeclahay heesaha kaliya maaha masraxa riwaayadaha gabayada folkloorka ama dansiga heesaha runtii aad iyo aad aan u xiiseeyaa runtii aad iyo aad ma jiraan heeso Soomaaliyeed oo tiraahdo mararka qaarkood bandhigistaa oo aad sheegi kartid ama qaraami ha ahaadaan ama kuwan dambe ha ahaadaan heesaha Soomaalida mid iyo laba ma nooga sheegi qaraamiga haba u jeclahay maxaa ka mid ah heesaha qaraamiga jaashay ma dhageysatid sida dadka qaarkood ma cod fiicni laakiin Axmed Mooge ilmo Mooge aadan u dhageystaa runtii waxaan ama iiga horeeyo asagana la mid ah Axmed Kulo dadka heesihiisa qaraamiga aad u jeclaha kamid ah Xasan Aadan Samatar gabdhaha hadii loo leexdo Xaliimo Khaliif Magool Saare Axmed Qasra Daahir dadka heesaha qaraami Amina Cabdullaahi dadka heesaha qaraamiga qaado dhanba runtii aniga aad iyo aad aan u jeclahay waxaana wali jeclahay heesaha ay ku laran yihiin suugaanta siyaasadda iyo suugaanta dhaqanka iyo suugaanta runtii kobcisa qiyamka oo ama iskaashiga ama midnimada ama naxariista ama kuwaas aad iyo aad runtii ay soo jiitaan heesaha oo curiyo abwaan Allah caafiya hadarta inuu xanuunsiyaa la sheegay Cabdi Qays maadaama asaga aan daba galo taariikhdiisa nin laba jeer la xiro oo yahay aad u soo jiita si hadraawiba laakiin markuu suufiga noqday oo heesaha suufiyada fankiisa oo suufiga noqonayo oo isku bedelayo suufinimada aad iyo aad runtii xiisa oo leeyahay fanka Soomaaliyeed sidiisaba wuxuu xiisa badnaa 10 sano dimuqraadiyada oo fanka ugu culus xagga siyaasadda ah siyaasadda kritika ka hadla aniga siyaasadda guulwadaynta ma aha dawladdii militariga ahayd fankii fasaxaday fankii wuxuu ahaa ama cadow ku jeeday Itoobiya ama guulwadayntii amaanta ku jeeday dawladda kaliya fasaxaday laakiin way afduubtay fankii oo kritiga ahaa oo dhaliilaha ama bulshada ama dhaqanka ama siyaasadda qaasanta siyaasadda dhaliilaha kaas way afduubtay marka fursad badan lama helin waxa kale oo dhibka kale ka dhacay in suugaanta lama jilcinin suugaanta waa la jilciyaa adduunka kale ama si kale daan u dhigo suugaanka dadka reer magaalka ha qora dadka arbanka suugaanta qora novelada kale hadda yartaan markii laga hadlayo ama Shakespeare ama Tolstoy ama ragga waaweyn oo hadda adduunka kale wax qoraa waa dad reer magaalo arbana marka nolol magaalnimo wax ka qoraan anaga laakiin suugaanteena waxa qoray dad reer miyi ah حتى markii heesaha la tirinaayay iyo fanki dhalinyarada magaalada ku dhalatay ma la jaan qaadi karaan sababtoo ah erayada xiriir inta badan leeyihiin miyiga ee dhaqanka miyiga laakiin abwaanin yar oo badan baa jiro oo heeso badan oo magaalo ah sameeya oo qaarkood digitalka la socdaan ama technology-ga xataa la isku amaano abwaanintaas oo kale iyo fanaaniinta dambe iyaga maana dhageysan waa fiican yihiin aniga waliba aad iyo aad aan u daneeyaa oo saaxiib u lahay qaarkoodba runtii sababta keenta ma aqaan in reeqooy u bataan laakiin kuwaas hataa cusub hadda waa un reeqooyiga naftooda oo curiya Soomaaliya ka soo jeedaha way fiican yihiin inay curiyaan laakiin wali aniga de qaybta aan daneeya qaybta siyaasadda wali dhaqanka siyaasadda luqadda siyaasadda iyo horumarka siyaasadda fanku wajahan uu jacaylku badan yahay waxa kale oo badan nolosha kale oo ama familka la xiriirta ama qofku inuu ka sheegto ayaan dhaxasa waxa la yiraahdaa nacab kaliya wax laga alifaa nacabka wax laga alifaa kaliya asleedahay iyo qabka iyo argudashada xataa maaha midka colaada kaliya maahane midda nolosha xataa qofka inuu ciidoobo ciil qabo oo qof kale wax ka sheeganayo
laakiin ani midaan ka hadlaya waxaa waaye suugaanta siyaasadda ma xoog badna taas. markaan soo xidhno chapterka ama qaybta barbaarintaadii iyo waxbarashadaadii waxaa ku qoran buugga habka aad siyaasadda ku soo gashay. daawadayaasha ayaan u dayn doonaa iyo akhristayaasha inay buugga akhriyaan adkaysi kadibna ay ogaadaan siyaasadda si aad u soo gashay. laakiin waxaan doonayaa inaan su-aal kaa weydiiyo bal siyaasadaadii muddo dheer aad ku soo jirtay marxalado kala duwan baad soo martay wasiir baad noqotay xildhibaan baad noqotay musharax madaxweyne aad noqotay waayo badan oo siyaasadeed oo isbarkan baad usoo joogtay oo adkaysigeeda lahaa. maalmihee baad odhan kartaa waa maalmihii noloshayda siyaasiga ugu xumayd? waa hadda sanadii ugu dambeeyay hadda hirtaan oo dee markii la soo weeraray in weerar dhacay keliya ma ahayn, ilaahay waa naga badbaadiyey, laakiin waxaa joogto ahaa cabsigelinta in haddana marka lagu soo weerarayo in dhaqdhaqaaqa dhan la xadido, in nashaadka iyo activity qabaleed aan la ogolayn, in xataa safarada dibadda laga xanibayo ama haddaad tagta xataa in hor istaaga la isku dayayo. runtii runtii xilligaana igu adkaa aniga oo igu adkaa. waxaan ka hadlayaa adkaashada shakhsiga ah, laakiin siyaasadda waxaa iigu walwal badnaa xilliga aan wadahadalka Jabuuti aan hogaaminayay, sababtoo ah isbahaysi aan ka tirsanaa wuu kala qaybsamay. qaybaa casmaro ku hartay, qayb oo gudoomiye isbahaysiga hogaaminayay madaxweynihii hore Sheekh Shariifna waxaa nimid Jabuuti aan nimid. marka saaxiibadeena ku haray casmara waxay markasta rihaan ama ay dhahayeen qoladan waa la qalday. wada Cabdalla nin ilaa UN ka madaxdu ahaa markaas wakiil u ahaa iyo gaalada waashay waa la sirayaa. wadaadkan Sheekh Shariifna wasiirka awqaafta baa la siinayaa, kuwaana afar ka mid ah xildhibaano laga dhigayaa, nimankaas waa la iibsaday. marka challenge waxaan ku jirnay aad u weyn oo ah inaan waxaas bixinno oon guulaysano. bayskii aan deganayn oo mucaaradka deganaana waan ka soo tagnay. marka wadahadalkiina anaa hogaaminayay. marka in la guulaysto runtii annaga waxay noo ahayd nolodii dhimasho siyaasadeed dhexdooday noo ahayd. marka xataa inkastoo khilaaf gudaheyna ka jiray annaga aan isiiraa diidan caleen siyaasaddaaba dabeecaddeeda saas tahay. oo marka waxaan aad iyo aad ugu walwalsanayn in wadahadalkaas sida ayaga ay u dhigayeen tiimkaas aan u ekaano dad laga adkaaday, jaabka la gashtay, la siray, siyaasadda ku cusub, dhagar la geliyey, waxba aan kala garanaynin. marka taxadigii ugu weynaa runtii markaasuu ahaa aniga siyaasiyiin waana cusbeen, kulligii siyaasadda waa ku wada cusbeen, macalaa guddoomiyaheena, macalaa aniga, macalaa dadkeena dhan oo siyaasadda dadkaas uun ku yimidaan ahayn. halgankii iska caabinta usoo aaday maaha hadda siyaasadaad gelaysaan kuma aanan talagelin. markaasna waxay ahayd natiijo ahaan markii igu dhibka badneed ahayd. magacaaga iyo waayahaaga siyaasiga baad 10 sano ka hor dhibano u noqotay. waxaa ku jira buuggaaga 2015 muddo laga joogo 10 sano ka hor inay ahayd maalintii kuugu murugada iyo warwarka badnayd ee adilmada cishan weyday adigoo ku xaraysan xerada Xalane oo ah la taliyaha mid kamid ah la taliyaasha ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ayaa waxa lagu soo sheegay geerida hooyada, taasoo waliba aad u arkaysay inaad xagratay xaqi ay hooyada kugu lahayd sababtoo ah wiilashii ay dhashay lamay joogin. waxay hooyo doonaysay mar walba sida buugga ku cad inaad noqotaan dad dalkooda iyo dadkooda anfaca, taasoo aad samayseen. haddana kubaddu waxay u ekeydinay isrogayso maadaama waalidkaanad waqti la qaadan karin. magacaaga Cabdiraxmaan ahaan iyo wajigaaga la garanayo dartii oo laga yaabo in lagu dilo oo naftaada aad ku weydid, hooyadaana aanay ogolayn inaad u timaadid oo la joogtid oo meel kula noolaatid, taasoo kaliftay xataa wiig walba hal maalin inaad ku kulantaan meel aad isugu timaadaan. marka magacaaga siyaasiga adoo dhibano u ah waxaad buugga ku sheegtay in hooyada geeriyootay adna xalanaad ku xaraysnay. maalinkaas dhimashadeeda ma tagtay aaskii mise magacaagaasi wuxuu sababay inaanad u iman karin xataa hooyada meeshii lagu aasay ama aanad soo istaagi karin? ma runtii maalintii ugu murugada badan nolosheeda ahayd runtii aadna xanuun badan. saad u sheegtay u dhacday aaska waan tagay dabcan nin saaxiibkay dawladda ku jiraan wacday Cabdiraxmaan Odawaay wasiirka arrimaha gudaha ahaa inuu ciidan iyo baabuur isiiyo oo
hooyana waxaa lagu aasay dee isbitaal Martini oo markaas dowladda territory ka talisa ah lagu aasay ilaa hadda ku aasan tahay meel markii la tagi karay ahayd ilaaladii ciidanka u baahnaa ninkaas odagaa saaxiibkay aan u mahad celinay wasiirka ay siiyay laakiin xanuunka dadka waxa laga yaabaa hadda xaaladda ay ku jiraan inay caadi ula tahay laakiin dhowr sano kadib haddii waddanka dego dadku markay akhristaan ay ogaan doonaan xaaladda lagu noolaa in hooyada oo magaalada kula nool aadan booqan karin aadan soo ziyaaro karin oo ayadiina ay jeclaatay in ay annaga dhibka naga dhowrto maraan isku dayay inaan u dhuunto oo gaari kiraysto yar oo kuwa tagaasida ah oo cimaamada iyo inta iska qaato qamiis iyo ayadoo la garin asay u naxdaan ogaa maalintaas macnaheedu anay ii naxaysa marka macnaheedu anagana waxaan jecleen ayada inaan la joogno marka wiilasha walaalahayna saddexna dibadda ay jirtay afar dibadda ay wada jireen laakiin mid Suudaan wax ku baranay saddexda kalena Yurub ay jireen marka gabarna ma isa dhalin marka in aan dhinaceeda joognaan jeclayn laakiin duruufaha yaa kala haatiyay dadka Soomaaliyeed oo waliba argixisada ay sabab u tahay inaadan masaajidka ku dukan karin inaadan waalidka booqan karin inaadan magaalada si caadi u mari karin macnaheedu waxa soo dhibaataa waxa geystay waxay ahaayeen ilaa haddana ay yihiin argagixisada dadka dhibaatada ku haysa taasaa marka ahayd waxaa murugada iyo mootada iyo geeri inay fajac ahayd kadis ahayd habeenkii asla hadalnay markaas waa isla hadli jirnay iska caafimaad qabto waxa yar waan jujucsanay tiri subaxiina wiil ay u too dhakhtar ah isbitaalkiisa la geeyay xataa ani iimaysheen isbitaalka caadayso markii ninkaas ay soo wacay soo wacay eedayna wax dhakhtarna waa aha oo yiri hooyo Allah u naxariis marka waxay u noqdeen runtii shock u noqday aad iyo aad u xanuun badneed runtii maalin iga xanuun badan noloshayda ma jirin waxaan islahaanay abaalkii hooyada ma aadan gudin oo qofku wuxuu jecel yahay waalidkiisa inay dhabtiisa ay ku dhintaan oo la joogaan oo maaragtay laakiin taas ma aysan dhicin dayacna waa la dhihi karaa laakiin duruufaha adagne waxay sababeen waa runtii oo dalka ka jira markaas oo ilaa haddana jira weli aniga laftigayga akhrista ahaan marka laga tago inaan waraysigan qaadayo waxay ahayd laxdada igu adkayd inaan akhriyo buugaaga qaybtaas sababtoo ah waxaan suuraystay anigoon hooyaday u tagi karin iyada oo dhimatay ilaahay kama dhigo waa runtii waa wax adag waliba gaar ahaan markaan arkay nolosha duruufta ay kugu soo korisay agoonnimo iyo inay diiday xataa in la dumaalo ay tiri guur dambe ma garaayo anoon wiilashayda meel ka soo saaray runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa waraysigan kula yeeshay waxaan rajaynayaa dad badan inay buuggan akhriyaan ay ka faa'iidaystaan isla markaana waxaan leeyahay anigu Cabdiraxmaan Cabdishakuur buuggiisa ayaan ku bartay shakhsiyadiisa waxaan ogaaday buugta marka la akhriyo in afkaar badan oo qofka ka qabtay ay ka bedeli karaan buuggaagu waa garnaqsi waa ku garnaqsatay waxyaalo badan oo suuqa ku jiray oo siyaasadaada lagu dhaleecaynayay ama shakhsiyadaada siyaasiga baan halkan ka arkay oo aad ka garnaqsanaysid marka qof kasta waxaan leeyahay buuggaagan ha akhriyo runta ma santa Sheekh Cabdiraxmaan xalay eventiga lagu soo bandhigay si fiican runtii u dhigay qofkii ka fiiriya dhinaca trajectory-ga ama masaafada qofka uu jarayo noloshiisa iyo marxaladaha kala duwan oo marayo buugtan mama iska liiraada ama xusuus qorka liiraado ahamiyada ay leeyihiin waxa kamid ah dadka buugta xusuus qorka aad u jecel akhriyaan ahay dadka waliba madaxda adduunka soo hogaamiyay iyo taariikhda ku jira runtii qofku waxa ku saameynaya noloshiisa shakhsiga ah saameyn weyn ku yeelanaysa sidoo nolosha u wajahay sidoo go'aamada u qaatay caqabadaha soo wajahay soo uga talaabsaday maxaa qofkan karaanka iyo awoodda iyo ruuxda waxaanu mushkilad inuu ku xamilo oo qaadayo Audacity of Hope buu leeyahay leeyahan buugtan akhriyo kamid ah Obama marka oo xaaskiisa ay ku leedahay warniyo adoo madow ah abahana musliga magac Xuseen waa cid ku dooranaysa ma lahayn waqti iska luminin markaas uu leeyahay xilligii ugu dambeeyay isku dayay waay this last time senatorku markaas uu orday markaas ay leedahay ilmaha ila korso dhibkana ay gelinin mushkilana ay gelinin dabcan faamilada saasay u badan yihiin meel ay joogaanba waxay jecel yihiin in waana run xaqi u leeyihiin ilmaha la koriyo waqti la siiyo oo taasay aad u daneynayaan
marka wuxuu ma laga yaabaa adiga iyo Obama inay isku sheekatihiin oo lagu yiri saddexda wiil ila korso oo siyaasadan dhowr jeer bas isku dayday iska daa ma runtii waa lagu dhaxayaa taas laakiin waxay ay xaaskeyga ay mudnaan ku leedahay ay dadnimada ku leedahay waxa waaye inay waxaas igu dul qaadanaysa macnaheedu oo dhibaatahan maraayo oo ilmaha xoogeeda ayada ay korinayso oo ilma fiican oo waxbarashadu ku fiican oo diintooda dhaqankooda haysta inay qorbo ku korisay waaba kartida ay leedahay ay kamid tahay runtii ee dadnimada ay leedahay gabadha markaan ugu dambeysay uu leeyahay hadaa markaan way qaraas waa ka haraa siyaasadda professor oo ahaa nin jaamacad weyn Harvard wax ka dhiga oo la yaqaan oo laakiin wali markaan ay ugu dambeysay markii uu helayaa markii senatorkii oo noqonay markuu madaxweynaha raadinayna way la yaabaysaa madaxweynaha haddana markaas magaca Xuseen ku iska reebaya Barack Obama la baxaya Xuseen ku tiraya muuqda waa lagu dhibay waxa la mid ah deerka mayor ka noqon doona magaalada New York marka asoo from nowhere ka yimid qofka marka hadii oo markaan aan fiirada asaga wax badan lagama qorin laakiin marka aan fiiriyo waa la yaabaysaa yarkaas struggle-ka uu soo maray macnaheedu ha dhowr sano ka hor baabuu sikiisan xataa Mareykan noqday inuu sakaniyo jabi macnaheedu hamiga adoo hadda dhow Mareykan 2018 ka noqday muwaadin hooyada aabaha aysan ku korin inaad damaacdo magaaladii ugu weyneed wadanka inaad mayor ka noqoto marka hanku wax sahlan ma aha madaxweyne ku-xigeenka la mid wadankan France يعني بوجي ساسك فيلنا بلقى سميه معني نلاش أو كسر كرسي وأذكتها معني دبك أو صامري معني وحصلي كرتا قف نكاس أو كسر بد بعدي مو في سنفلك سوق جرا بوجي فيلنا لو بدل مركز دتكو ودي قاعن يشان كران لي مادان روح لي مادان أنا وحنا أمسنا إني كاميرا على كران همي جودي هم اللي ده بوقت النوع عاصين مركز وحلاقة maxaa ku sheegay shidaalka iyo waxay ku siinayaan ruux iyo dhiirigelinaad ka helaysaa inaad akhriso xataa siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam hadda si siyaasiyan u akhriso oonan si uun iska ahayn dulmar aad u akhrinay si siyaasiyo oo camiiq aad u akhriso waad helaysaa taas inuusan nabigu marna calayhi salaatu wasalaam marka ugu adkaa noloshiisa oo la baacsanayay oo qaari xiraa gelayo oo ninka eriyanayay boqolka halaad geel loo ballan qaaday is arkaan Suraaqa ibn Malik macnaheedu asoo duruufta u adag ku jiro wuxuu leeyahay vision dheer oo muujinaya wuxuu leeyahay Suraaqa hadaad iga harto waxaan ku ballan qaadayaa taajka dahabka madaxa u saaran ee Kisrana markaas dee waa boqorkii Bershiyaanka oo dadka Iiraanta hadda la yiraahdo marka waa asoo yiri waxay la mid tahay White House-ka taajkiisa ku siinaya maanta yiri camal marka ninka carabka uu leeyahay wuxuu ninka محمد واسكا عياري أصلا دبكم كجرو أنا وحوليه عن كوزينيا تاشك كسرة حلقي سيدنا عمرنا إلا سي ومضح اللوج اللي يلي مكتوب بالنبي كوبا لنقاعد مركز قفكم مركز تا إنه فيجن يعرفتي دير ليه هاي ومهم ما لو كده هكر وحكى بركرنا هالكن ساكن ده هاد بدو ما صنت هاي مدن حرلي بان قول بنكورة تشينية وليس